war Soomaaliya waan idin salaamay YouTube-kayga dadka jooga subax wanaagsan. Waxaan rajeynayaa inaad cawabari fiican kusoo toosteen, waagu si fiican idinkugu bariyay, aad wanaagsan tihiin. waxaa jirta mararka qaar oo ogtiin Facebook baa leeyahay marka qoraalahan ku qoro dadku way ka falceliyaan, qaabkii uga falceliyaana dood baa iiga soo baxda. maalin dhaweeta ayaan waxaan qoray khudbada Jimcaha miyaa Soomaali ku dhageysateen, iyo waxaan kala weydiiyey haddaa qof dumara tahay ma soo tukata khudbada Jimcada ma aadaa. anuu Yurubaan joogaa markaa dumarku mararka qaar way aadaan Jimcaha, salaada Jimcaha way soo tukadaan. sababta markaa su'aalaha aan u weydiinayay iyo ma laga yaabaa in haweenku ay masaajid gaar ah oo ay ku cibaadaystaan inay helaan. su'aasha hadda idinku kugu daraya waxaa weeye ama weydiinta idinkugu darayo, ma laga yaabaa in haweenku ay tujin karaan ragga oo hor istaagi karaan ayagoo salaada oo ay u noqon karaan iimaan wax loo yaqaano ama imaamya mise imaam ay doon ma garanaya, ma u noqon karaan oo qof ma tujin karaan salaadaha oo dhan ama mid Jimcaha ha noqoto ama salaad caadiyo salaadaha shanta salaadood oo kale ha noqotee. horta dadkeenu qaabka dadka wax loo baray ardaynimada markaan quraanka soo dhiganayno waxaa weeye in macalinku kaliya wax kuu akhriyo ama iskuulku macallimiinta iskuulka ayagu markaa buugta waxay ka soo aruuriyaan ee qoraan, laakiin doodo badan iyo ardayda dhexdooda ma doodo. soo bulshada Soomaaliyeed xagga cilmiga diinta iyo cilmiga sayniska iyo waxaa buugta lagu qoray inta badan wax iskama weydiiyaan, kama doodaan. wax laga doodo waxa way qabaa'ilka oo qabiilka oo lagu faano reerkeenaba waxaa laayay iyo reeraheenaba intaasoo geela dhacay oo tuuga ahaa iyo qabiilkeena fara badan iyo waxay kaloo ku faanaan raggu inta dumar ay guursadeen iyo inta caruur ay u dhaleen ninka ugu caruurta badan. waxyaabahaasaa laga dooda oo ama faan ama dood ah oo ay ka sheekaystaan bulshada, laakiin waxyaabaha cilmiga ah inta badan iyo marka wax la baranayo doodo lagama sameeyo xagga maskaxda oo wax liskama weydiiyo, way xifdiyaan oo kaliya qofka weyn ama macalinka baana kuu sheegayaa sida aad sida asaga wax leeyihiin ama sida u fahmay markaa ama buugga qoran kaliya baad xifdinaysaa kaliya. marka waa haddii aad wax dooda keentid oo bulshada yara ka aragti duwan tahay wax la yaab leh oo argagaxa oo aan fiicnayn oo gaalnimo ah baa lagu tuhumayaa ama lagu malaynayaa. marka horta waxaa weeye dumarku waxay ka mid yihiin bulshada qayb ka mid ah waxayna wadankaas bayna wax ku leenahay anagu haddaan dumar nahay. anigu maadaama dumar aan ahay marka waxyaabaha oo dumarnimo aan dareemo baan dadku su'aal ka weydiiyaa, dareenkayga baan su'aal ka weydiiyaa. haddaba gabadha markay quraanka barato quraanka markii la baranayo in lagu cibaadeysto ilaahay loogu dhawaado kaliya looma barto sida dhabtaa waan ognahay way ku shaqaystaan raggu shaqo buu u galaa oo nolol maalmoodkooda bay ku dabaraan. okay waan ku tusayaa tusaale ahaan sida ugu shaqaystaan macallimiin dugsi bay noqdaan ama masaajidda haddaad masaajidka iimaan ah ka noqotid lacag baa ku helaysaa. ana hadda Yurub oo kale iimaanka masaajidka iyo muadinka lacag baa loo qoraa, lacag buu leeyahay, mishaar badan buu leeyahay. anigoo shaqeeya wuu iga mishaar badan yahay qofka iimaanka ka ah masaajidka isla ku yaala saa anuu maqlay ugu maqaala runtii maana fiirin mishaarkiisa, laakiin lacag aad u fiican buu qaataa. soo uma ahan inuu dadku tujiyo salaad kaliya iyo cibaado, laakiin waxay u tahay shaqo bay u tahay guriga sakridiisa iyo korontadiisa iyo waxaas ku bixiyaa. marka ragga quraanka markay bartaan oo kale dumar waxay quraan saaraan dumarka jinku galo jinkay ka saaraan shaqay u tahay dhinacana markaa ka fiirisid. haddii ay markaa quraanka iyo diinta waxa ay bartaan diinta oo dhan baa iyo cilmiga diinta waxay ka shaqayn karaan maxkamadaha oo xaakim bay noqdaan
ومركا علمي عادي هاي محل دها أو سكولات كل جود ويه يقران كبي سكو دران ومركا وحين نقول كران قفك حاكم كوسر هي محكمة دا تصال عهان مركا أيدي يو شرع حيرك ودقنا ضدك أيو مركا سكو درايا وماركتي ومركا كسر حصاريا وقضبضة لو حكومة قفك دبيلها أما قفك دبناها وكهلي حقوق marka anyway waxay u tahay shaqo bay u tahay ragga waxay u tahay magac bay u tahay waxay ku qabtaan maxaadarooyin oo waxay tagaan maxaadarooyin ama seminar taa u taqaanid markay jeedinayo qodbooyinka lacag badan baa ka soo gasha dhaqaale baa ka soo gala ragga lacag bay ku ururiyaan masaajid kale ku sii dhisaan madrasooyin bay ku sii dhisaan dhaqaale kala socdo buu u tahay cibaado kaliya uma haystaan diinta waxa isweydiiyay markaas oo soo noqonaya dumar ahaan maxay gabadha u taraysaa haddii aynan qofta dumarka aynan ku shaqaysan karin maxaa loogu dhumiyey jaaniska hadduu cibaado yahay oo cibaado kaliya dee in yaroo cibaadaha minta iska barto gabadha iska danaysato wax kaloo ay ku shaqaysato in la baro soo ma ahan dumarka oo salaadii iyo inta lagu soomayo waxa haddaa baratid oo aad eebbo ugu dhawaanaysid maxaa uga baahan yahay markaa gabdhuhu inay jaamacadda ay qaataan maxaa la dhahaa shareecada ay bartaan oo 5 sano iyo 4 sano kusoo dhumiyaan oo dugsi quraan maxay uga baahan yihiin ilaa waxaan kuma shaqaysanayaan haddaanan arkaynin gabar maxkamadda ka shaqaynaysa oo xaakim ah haddaanan arkaynin gabar rushaysa ah oo jinka ka saaraysa gabdhaha oo iyada loo tagayo haddaanan arkaynin gabar shifo u furan tahay oo shifooyinka iyo intay quraamka ka saaraysa jinkii dadka waalan biskoysiinaysa oo loo tagayo caafimaad loogu tagayo haddaanan arkaynin gabar iskuulkii madrasooyinka ugu sareeya ka ah maaragtay maamulo ka ah waxaasoo dhan haddaanan arkaynin waay ay gabdhuhu u baranayaan cilmigan diinta soo ma ahan waxay daaradda su-aasha soo maaha inay iska daayaan soo ma aha soo markii ragga la weydiiyo oo la dhaho gabadhu maxayna masaajid u tujin karin amase maxaysan u noqon karin qof xaakim ah oo qofka ugu sarreeya maxkamadda ah oo maxaysan u noqon karaynin dadku way xanaaqayaan special raggu aad bay u xanaaqaan raggu way xanaaqaan xanaaq iyo qaylo iyo gabdhaha qayba dumarku haddaan dumar nahay ilmaa dhalnaa ilmooyinku waan ku rafaadsanahay hooyooyinku ku rafaadsan yihiin anigu kuma rafaadsan shakhsiyan waxaan ka hadlayaa dinta guud waayo waddankaas wax ku leeyahay ehelkii baa jooga dadan habaryar u ahay baa jooga eedooyin caruuran u ahay baa jooga qaraabadeedii baa jooga bulshadaas baa afkooda baan ku hadlayaa dareenkooda waxa dhex yaala baan arkaa haweenka dumarka raggan way iska dhintaan inta badan ayaga isdila ama cudurro iyo balaayo dhaqso ugu dhintaan oo balwadi waxaasay leeyihiin aduu way leedaan haddaysan la-een oo dhiman xitee dumarka ilmaha ku furaan oo dumarka ayagoo nool raggii balwad bay iska leeyihiin ama naa kaloo guursanaya hooyooyinkii baa ilmihii haya oo korinaya nimankan qaylinaya war mar waxaa jirtay hooyadaha aysan haysan jaanisyadaas oo dhan oo wax shaqaa aysan haysan oo ay kula tuugsanaysay ilaahay laciif kaa dhigiye ilaahay ha ku daciifiye doqon yaho mar baa jirtay ay kula ooyeyso oo waxay ku siiso iyo waxaa cunto aad la-eed adigii koray oo tuugsigu lagugu soo koriyey oo laga yaabo hooyadaa inay dhilayso kugu soo korisay oo soo dhilaysatay baa hadda markii la dhaho war shaqooyinkaas dumarku ma heli karaan waa qaylinaysaa ilaahay baa u diiday mana haysid daliil iyo meeluu ilaahay ugu diiday maxaa u baranayaan gabdhuhu cilmigan haddiise ku shaqaysanin mar kale waay waqtigu uga dhumayaa waay aan gabdhaha malcaamado u geynaynaa waay sabab shame on you maalin walba inaa arka maalin wata maxaa arkay maalin walba inaa aragna gabar ooyeysa oo ay ka xiran yihiin shaqooyinkaas dhan nin bay u meegaarsan yihiin shaqooyinka oo dhan oo dhanka diinta ahaa haddii siyaasadii iyo wixii lasoo aaday iyo baarlamaankii iyo waxaasna rag bay u xiran yihiin nin baa wuxuu leeyahay ma gabar baa noo talinaysa
oo haddii cilmiga diinta lagu la bartay aadan ku shaqaysanaysaan oo siyaasadii iyo wixii dhaqankii gaalada laga bartay aad rabtaan adinku inaad muruqsataan ilaan dowladnimadu ma ahan dowladnimada dadka ayaa maaha wax diinta laga bartay dowladnimadu waa nidaam dadku ay la yimaadeen inay xeerar dhigtaan inay xabsiyo samaystaan inay madaxweyne doortaan inay baarlamaan samaystaan inay ciidan waddanka difaaca samaystaan ma ahan arrin ilaahiye ah oo kitaabo quraan aan ka baranayno waa dhaqan dadku keeneen dhaqanka dadku keenayna haddii aad adinku muruqsateen oo aad rabtaan oo meeshan anaa ka shaqaysanaya soo marka ma ahan dad naga mida oo waddanka aan la leenahay oo na neceb oo nolol dhan noo quurin ilmahan isla dhalnan intee ka cararaan mar walba ma dumarkaa la ooyaya ana waxaan arkaa arrintaa runtii arrin foolxun baa arkaa arrin gudnibaa baan arkaa arrin in laga hadlo laga doodo u baahan baa arkaa su'aalaha aan isweydiinaya maaha inay gabdhuhu isweydiin karin laakiin waxa laga yaabaa inay ka baqayaan inay hadlaan inay su'aashaas isweydiiyaan ooyin bay kusoo gudbiyaan gocashadooda ayagoo balanbalaya ayagoo tuugsanaya ayagoo ooyaya ayagoo jirkooda gadaya ma ogtahay marka waa cajiib weeye runtii waxaan isweydiinayaa ninka Soomaaliyeed dhageysan doono waxaan walaal weydiinteedu waxay daaran tahay marka adigu xooga yareed oo hooyada ku korin maxaad hooyada maxay kula foolxun tahay haday ragga tujiso ilaan salaadu waa cibaade haday masaajidka ragga tujiso maxaa hooyada u aragtaa inay tahay wax foolxumo oo aan banaanayn oo shar ah oo laga cuudi bilaysto aabahan maxaa u aragtaa wax haboon inuu tujiyo oo salaada horkaco maxaa ugu aragtaa aabaha inuu noqdo qofka xaakimka ugu sareeya maxkamadda laakiin hooyada inay tuugsi dhabarka intay kugu xirato ay tuugsato wax fiican maxaa u aragtaa fiicnaan hooyada inay niman aysan raalli ka ahayn isku qaawiso oo galma xaaraana ay samayso siday caano kugu keento laakiin wixii ay qalinka ku baratay maxaa u aragtaa wax ilaahay diiday nimankaas waa isweydiinaya maxaa u aragtaa wax ilaahay diiday oo una raalli ka ahayn eebe maxaa u aragtaa ana waxaan ka naxsanahay runtii ragga dumarka ayaa ragga dhala wayna koriyaan markay hooyooyinku korinayaan raggana wiilashana jacayl bay ku koriyaan raxmad bay ku koriyaan waay markay weynaadaan aad ugu neceb yihiin dumarka waay anu waan yaabana walaalayaal runtii naxdin baa haysaba maxay raggu dumarku u neceb yihiin markii laga hadlo arrin dumar ilaa waa aragnaa dhibta iyo gaajada iyo hooyooyinka waxa hayee inaysan always ay siilka ku xiranayso dhiig iskaga xijinayso inaysan gadan karin gabdho badan waa aragnaaye inaysan ilmahooda caano siin karin oo dhakhtar geyn karin gabdho badan waa aragnaayo malaayiine markii laga hadlo waxa ay dumarku siday shaqo abuur iyo wax u samaysan lahaayeenoo shaqooyinka nimanku u xirteen ay u soo gelin lahaayeen suuqa shaqada maxaa nimanku u xanaaqdaan walaalayaal ma raqaniisiinaa idin dhalayoo ma laba nin baa iska kiin dhashay miyaysan hooyo naaska idiin soo dhiginoo hooyooyinkiinoo siday cuntoyin kugu raadiyaan la walwalsan oo indhaha sidaa kugu fiirinaysa oo mar ilmo ka daadanaysa miyaadan soo arkin marna ma soo arkin miya ma dad la tuuray baa aniga igu xiran oo idhageystaa anuu waan yaabsanahay runtii aad baa u yaabsanahay waa wax argagax bay ila tahay walaalayaal dumar idinkuna waa u baahantihiin inay isweydiisaan okay goobaha lagu cibaadeysto in dumarka laga xarimay dadka Soomaaliyeed oo kaliya ma ahan dadyooga caalamka oo dhan oo kuwa kristanka haysta iyo kuwa hinduuga haysta iyo waxaas oo dhan niman bay u xirantaa goobaha cibaadada niman baana ku shaqaysta Norway annaga xisbiga oo maxaa la dhahaa bidixda hadda hogaaminaya wadankeena ayaa mar soo saaray ra'iisul wasaaraha in goobaha cibaadada oo dhan dumarka laga siiyo 43% mise 45 bay ahayd oo sharci baa laga dhigay dowladda ayaa waxay aragtay inay meesha rag kaliya u xiran tahay marka sharci baa laga soo saaray sharcigaasna uu dhaqan galay waxaana rajeynayaa inuu wax iska bedeli doonaan goobaha cibaadada oo dhan maaha masaajidda kaliya masaajidda kaniisadda meesha ay yuhuuddu ku cibaadeysato iyo meelaha hinduuga iyo budismaha iyo kulli
meel kastoo cibaado loo tago oo eebbe loogu dhawaado ayay dowladdu waxay rabtaa inay isku soo dhawaadaan ragga iyo dumarka runtii waayo meelahan cibaado kaliya looma joogee waxaa loo joogaa magac baa laga helaa lacag baa lagu helaa dhaqaalaa lagu helaa waxaasoo dhan baa loo joogaa kaliya maaha in eebbe loogu dhawaado soo isla fahansanahay qofka caqlilana wuu fahansan yahay ma laga yaabaa inaan aragno sanadada soo socda ee gabdha ay shifo u furan yihiin bal fiiri xanuunada jinkii waxaa la sheego inkastoo anigu aanan ilaa ahayn inay wax jira yihiin oo dumarku la dhibaataysan yihiin dumar baa rag baa qabsanayo ka saarayo maalinba nin baa daba taagan gabdhihii oo futadooda iyo naaskooda qabanaya waayo ina gabdhuhu qur-aanka ilaan way barteene way yaqaanaan may ku shaqaystaan maxay ugu xiran tahay goobtan nimanka mis weydiiseen rusheeyaasha iyo waxaan meelaha wareega xaafadaha maxay u yihiin niman bes waayo gabdhaha dhalinyarta maxaa xaafadaha loogu casumi la'yahay qur-aanka ay bartaan gabdhaha iyo qur-aanka wiilashu ay bartaan ma laba qur-aan baa ma qur-aan shaydan baa gabdhaha la baraabaa ka wadaan oo qur-aanka kaloo caadiga lama baro miya wuxuma laba kitaab baa la kala dhigtaan waan fahmi lahaye haddii qof xanuunsado gabdho guruuba oo socda oo qurux badan oo reerku usii socdo dadkii qur-aan saarayo guryihii quraaminaya lama arko wiilal waxaa la arkaa sii haliilan oo reerkii barfaadkoodii iyo gabdhihii waxa dhex tegaya xaajadu xagee bay ka xirmi la-dahay inuu waan fahmi la-ahay anu waan fahamsanahay mana fahmi leeye waxaan fahamsanahay meesha dhaqaalaa soo gala inta badana nimanku way u halgamaa waxaan dumarkina ay ka aamuseen marka waxaan rajeynayaa dumarku way fahamsan yihiin inaa codkooda ku hadlaye walaalayaal sheekadan de waxyaabo kale ka shaqaysta wiilasha tumaalada u taga birta sida loo tunto barta waxaa barataan timaha sida loo jaro oo timo jarayaal ka shaqeeya oo ragga timaha u jara mar walba jirkiina ma ganacsan kartaan tiktoka maxaa arkaya gabar dhahaysa waxba ma haysto waxaa rabaa jirkiga inaan ganacsado hal gabar haysataa oo si soomaalida u bariyeysa marka dambe hadda waxay bilowday inay isqaawiso jirkeeda ka ganacsanto waa xanuun marka waxaas kale aragtid waa xanuun haddii timo jarnimo iyo sida alaabta loo sameeyay ay kasoo baran lahayd tumaalada waa ku shaqaysan lahayd tumaalada walaalayaal caawiya gabdhaha caawiya waa aragtaan goobihii cibaadada iyo meel kasta niman baa xirtay adinku nimo fiican intaa noqotaan farsamadiina gacanta oo eebba idin baray bara sida timaha loo jarto bara sida loo ugaarsado bara sida alaabta loo sameeyo dugsiyaasha waxaa bara sida burkujooyinka loo sameeyo farsamooyinka quruxda badan bara sida dumarku u noolaadaan runtii waa talaa idiin soo jeedinayo raggii kale waxay noqdeen rag bahalla ah oo manxayaala oo keligood raba inay wax cunaan markay dhintaan ilmahooda lala rafaado saasay noqdeen badankoodii majoritigoodii qaracan baa ku dhacay ninka haddaad dhahdid hooyada gabar soomaaliyeed war hooyaa ku korisay anugu fahmi laha ma dad la tuuray baa dadkan alla hogay nimanku dhaadhaansana raxmadday gabdhuhu siiyaan ma siiyaan maxaa la dhahaa nooma soo celiyaan waa cajiib wey wallaahi waa cajiib wallaahi anigu gabar baa ii joogta gabadheeda yartaa ilaahay qalqabaan ku dhaartay siday wiilasha ugu naxariisato aniga waan tacajabaa waxaas dhahaa qof malaa'iga baa guriga kuu dhex joogta oo bilaadan ba ahayn iyo wiilashu siday yihiinba soo markaan fiiriyo waxaan u malaynayaa raggu inay shaydaan yihiin dumarkuna ay malaa'ig yihiin waxaan special ragga soomaalida special waan la yaabanahay nacayb gaara iyo hinaaso gaara iyo balaayihii baas baa ka muuqda nimanka iyo waxaana fahmi karin caadifada iyo wax walba sharoo dhan baa ayay ka dhex muuqataa yaa marka waxaan idin rajeynayaa haddii cibaado tahay arrintu intaana soo gabagabeen sidee xaaraan u noqonaysaa ilaa ilaahay baa la hor fadhiisanaya ilaahay baa la hor istaagayaaye maxaa dumarka ka reebaya walaalayaal anigu ragga waan ka shakiyey diinta muslimka ma haystaan mise adinkaa diinta shaydaanka laydin baraa labadaas waa mid waxbaa kule isku wax laydinmama baro meeshaan waxaa cajiib weeye mar walba oo dumarka lasii cinqaabo oo lasii cadaadiyo waxaan arki doonaa afghanistan hadda xisbi baa qabsaday intaas baan kuu soo gabagabeynayaa cadaadinta dumarka iyo sii fogeynta u noqoto
beriga hore waa arki jirteen gabadh meelna kama muuqan indhaha macaa way u xiran yihiin waxaa la yidhi iska kaaya qariya waa inaa isqarisaan dumarka dhan way isqariyeen shaqooyinkii iskuulla waxbaa furfurnaa iskuulaadka dhan waa loo diiday hadda iskuulaad dhan ma baran karaan gabadha afghanistaanka banaanka 2 jeer buu bixi kartaa waa markii ay guriga hooyadeed ka soo baxayso oo guriga ninkeedu ay u soo ninka guursanaya inta kale ama guri reerkooda joogaysaa ama waxay joogaysaa guri nin qaba banaan uma bixi karto waa laga mamnuuca banaanka haddii ay banaanka u baxdo oo adeeg ay doonanayso waxaa laga mamnuucay inay hadasho hadal ma hadli karto hadalka oo dhan baa ka xiran waraaqba waxay ku qoraysaa waxa ay iibsanayso heerkaas waxay maraysaa Afghanistan daalimaankii baa soo rogay sharciga anaga dumarka Soomaaliyeed marka qaar waan u baqaa sida marba loo cadaadinayo inay foolxumo weyn loo geysto baa cabsi noocaas baan marka qaar ka dhacarkaa dhaqanka nimanku la soo baxayaan waayo markayna wax shaqo u ogoleen maalinba Afghanistan maalinba waxbaa laga reebiyaa haweenka moogtahay markaan waxaas dhihi lahaa intay foolxumooyinka waaweyn ayna imaanin dumarku waxaa la yidhi daadku intuu ku soo gaarin baa la iska moosaaye nimankan bahalada iska moosa waa islaamiga anigu ka hadhiina meesha ay la socotaan waa YouTube-kayga waan quraacanayay iga sii jeedaa kaamiradu waxaan kugu aadiyey maxaa la dhahaa shamca ii shidan subaxii markaan quraacanayo waxaan jeclahay waa iska hadda barqo lunch camal oo kala waaye markaa waxaan jeclahay inaan saan u quraacdo oo shamca waa qurux iyo nidaam waxaa cunay baasha rakaha la dhaho ukun avocado iyo waxaas baan idin tusayaa kafeegaygii quruxda badnaa oo macaanka badnaa oo carafta badnaa marka waxaan markaad shaqaysataan walaalayaal maxaa la dhahaa markaad shaqaysataan waxaa helaysaan runtii farxad baa helaysaan ilmihiina waxaa siisaan baa helaysaan waxaan idin rajeynayaa inaad shaqooyinka fahantaan oo aad shaqaysataan waan ka naxaa gabdhaha dhibta haysata baan ka walwala ragga fiican way fahmi karaan inta xunna ma fahmi doonto waa mahadsantii